habeen wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha wadaagga Muqdisho haya waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo qadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in mooshin ay ka gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo maanta la kulantay xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay Muqdisho mudanayaasha baarlamaanka Galmudug oo maanta ka dooday ajandayaal dhowr ah shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka oo u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka oo galay maalintii labaad madaxweynaha dawladda Galmudug iyo Puntland oo ku kulmay magaalada caasimadda ee Muqdisho ciidamada booliska Dhuusamareeb oo gacanta ku soo dhigay nin fal dambiyeed ka geystay gudaha Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya howlgalla ka fuliyay deegaanada ka tirsan gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha Hirshabeelle oo Muqdisho kulan kula qaatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wararka dibadda raadiyaha wadaagga Muqdisho haya waxaa kamid ah Uganda iyo Tanzania oo gaaray heshiis dhinaca ishtaalka ah wadajirku waa wada noolaashuhu waa inaan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga wadaag FM wadaag radio wadaag FM waa habeenimo isniina 14 bisha sanadka 2020 warkaas nooca waxay noo haysaa wariyaheena Leyla Cusmaan Maxamuud mahadsanid Nuruddin Shardi ku soo dhawaada dhageystayaal warka oo dhameystiran madaxweyne Farmaajo ayaa qadka telefoonka wuxuu kula hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warkan ku eegaya ra'iisul wasaaraha Suudaan Dr. Abdallah Hamdoog ayaa ka gudoomay wicitaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo xiriir telefoon la sameeyay si uu la wadaago dareenka dadkii ku dhaftay dalka Suudaan wada sheekaysi kooban kadib oo dhaxmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan waxay diiradda ay ku saareen wada hadalkooda kaalinta Soomaaliya ka qaadan karto samata bixinta shacabka dalkaasi warbaahinta Suudaan ayaa daabacday in murugada dalkaasi ka jirta madaxda wadamada Carabta uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo gudoomay ra'iisul wasaare Abdallah Adam Hamdoog Soomaaliya waxa ay idin la wadaagaysaa xaaladda xilligan murugada leh xilli walibana waxaan nahay walaalihiina waana idin garab taagannahay waana ka qaybgalaynaa inta karaankeenna ah howlaha wax looga qabanayo musiibada waa qayb ka mid ah wadahadallada madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Suudaan oo xiriir dhex maray oo dhanka telefoonka sida warbaahinta wadankaasi ee daabacday wabiga Niil biyo ka rogmaday ayaa daadad musiiba ku noqday daadadkii ka dhashay waxaana ku guryo beelay dad u dhaxeeya 696 ruux ilaa iyo 270 halka ay barakaceen dad ku dhow 2000 oo qofood sida ay baahisay warbaahinta gudaha Suudaan daadadka xoogooda waxa ay ku rugmadeen magaalada Khartoum 4tii bishan oo haatan laga joogo 10 cisho dawladda Suudaan ayaa ku baaqday in la gaarsiiyo ama lala soo gaaro gurmad degdeg ah si ay dadkaasi laga samata bixiyo musiibadii gaartay xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa 10kii bishan oo ku beegneed khamiista shacabka iyo ganacsatadaba ugu baaqday in gurmad ay siiyaan walaalaha Suudaan si loogu muujiyo garab istaaga madasha xisbiyada qaran ayaa maanta kulan waxay la qaateen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Maxamed Ibrahim Axmed ayaa warkan ku eegaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa kulan waxa uu la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan madasha xisbiyada qaran Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa kulan looga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya waxa uu la yeeshay mas'uuliyiinta madasha xisbiyada qaran oo hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulanka ayaa waxa diiradda lagu saaray xaaladda dalka Soomaaliya halka uu marayo iyo sida dawladda Soomaaliya ay u qaban lahayd doorasho inay ka dhacdo sanadka 2021 dalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in rajadu ay wanaagsan tahay samanahaantana looga baahan yahay madasha xisbiyada qaran inay kala shaqeyso dawladdu sidii doorasho ay uga dhici lahayd dalka Soomaaliya ugu dambeyntii kulanka ayaa waxay isku garteen in laga wada shaqeeyo doorasho inay ka dhacdo sanadka 2021 dalka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan xasaasi ah waxa uu ku yeeshay magaalada Muqdisho Nuruddin Xasan Ibrahim ayaa warkan ku eegaya kulanka guud ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maanta ka dhacay xarunta ku meel gaarka ee Villa Hargeysa ee magaalada caasimadda ee Muqdisho kulanka xildhibaanada waxaa shir gudoominaya
weheliyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyadoona ay weheliyeen ku-xigeenka koobaad mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudi iyo sidoo kale ku-xigeenka labaad mudane Mahad Cabdulla Cawud. ajandaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ahaa in ay aqrinta koobaad ay ku sameeyaan hindisharciyeedka dhowrista maalgashiga taa oo soo gudbisay wasaaradda qorsheynta iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya waxaa la horgeeyay sharci kal hore baarlamaanka ilaaleen kaasi oo liddi ku ah shariicada islaamka. sharcigaas oo ka hadlayay arrimaha galmada kaas oo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kal hore ay ilaaleen. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudi oo ka hadlay kulanka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in sharcigan uu ka hor imaanayo diinta islaamka iyo sidoo kale dhaqanka suuban ee Soomaalida isagoona sheegay in dadka sharcigan wadan la doonayo in gabi ahaanba isku iloobaan in baarlamaanka Soomaaliya aqrinta koobaad ay mariyaan sharcigan ka hadlaya arrimaha galmada. diin kale malihin annaga sababta loo daba taagan yahay sharcigaas wasakhda ah horta ma loo sheegi karaa wasakh waaye quran waaye sharci ma aha haddaan idin sheegayaa wuxuu sharciga islaamka ka qabin iyo dastuurkan uu qabin lama keeni karo meeshaan mana ogolaanayo haddaan idin sheegaynaa sharcigaas lagu daba dhegan yahay waddan kastaba qanciya asaga ma qancinayno gaalada annaga. dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in mooshin ay ka gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. mooshinkaas oo ku aadan kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maanta uu diiday in gabi ahaanba baarlamaanka lagu daro ajandaha maanta kufsi idil loo geystay marxuumad Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax kaasi oo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. xildhibaan Cabdi Shir Jaamac Yaarjaal oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay mooshin ay ka gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya kaasna uu ka dambeeyay kadib markii gudoomiyaha uu diiday in lagu daro ajandaha maanta kufsiga iyo sidoo kale dilka Muqdisho lagu geystay Xamdi Maxamed Faarax isagoona sheegay in mooshinkaas uu gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. baarlamaanka galmudug ayaa maanta waxa ay ka doodeen ajandayaal dhowr ah oo horyaalay. Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warkan ku eegaya. maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 14 Sebtembar 2020 ayaa kulanka baarlamaanka galmudug maanta waxa uu ku qabsamay magaalada Dhuusamareeb idoo ammaankan si weyn loo adkeynayay. baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa kulan ku yeeshay xarunta oo ku shaqeeya baarlamaanka galmudug ee magaalada Dhuusamareeb caasimadda galmudug kalfadhiga labaad kulankiisii saddexaad. ajandayaasha kulanka looga hadlay ayaa gaaraya ilaa iyo 3 waxaana ka mid ahaa ansixinta jadwal howleedka golaha ee kalfadhiga labaad, ansixinta qorshe howleedka baarlamaanka labaad ee 2020 ilaa 2024, bandhiga dib u eegista xeer hoosaadka. kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal, guddiga xeer hoosaadka anshaxa iyo xasaanada baarlamaanka galmudug ayaa xildhibaanada ka horjeediyey talooyin ku saabsan dib u eegista xeer hoosaadka baarlamaanka galmudug waxaana kulamada kale ee baarlamaanka xildhibaanada ay ka doodi doonaan sida maantaba laga shaaciyo goobta kulanka uu ka dhacay wax ka bedelka xeer hoosaadka. ugu dambeyntii kulanka waxaa soo xiray gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ayaa galay maalintiisii labaad iyadoo madaxdana ay qodobada qaar isku mari la yihiin. Nuuruddin Shardi ayaa warkan ku eegaya. shirka wada tashiga madaxda dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo shalay si rasmi ah ugu furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa galay maanta maalintii labaad. madaxda xubnaha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa gaaray xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho. shirkan ayaa ah mid xasaasi ah waxaana diiradda lagu saaray arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020 ilaa 2021. ila wareedyo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxay sheegeen in ajandayaasha xubnaha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sii gali doonaan ajandayaasha shirka maadaama kulankii shalay uu ahaa mid hordhaca. waxaana la sheegayaa in madaxdu ay ka doodeen heshiiskii lagu gaaray shirkii Dhuusamareeb 3 kaas oo aysan ka qayb gelin madaxweynayaasha Jubbaland Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciid Dani madaxweynaha maamulka Puntland. sidoo kale waxaa la sheegayaa in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo sidoo kale Siciid Cabdullaahi Dani
shirkani ay laaleen qodobo horyaala madaxda iyadoona la sheegayo in weli mowqif midaysan aysan madaxdu ay ka qaadin arrimaha doorashooyinka dalka. warmurtiyeed ayaa la soo saarayaa iyadoona madaxda ay jeedin doonaan khudbado gabagabada shirkan ayaa ah mid xasaasi islamarkaana looga hadlayo nooca ay noqonayso doorashada Soomaaliya wuxuuna daba socdaa shirkii dhuusamada 3 oo Muqdisho oo magaaladaas ay ku yeesheen madaxda dowladda iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada dalka. dowladda Soomaaliya ayaa howlgalo waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Cusmaan Nuur ayaa warkan ku eegay. war ka soo baxay taliska kumaandoosta Soomaaliya ee Danab ayaa lagu faahfaahiyay howlgal ciidankaasi uu ka sameeyay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland. hogaanka Danab ayaa sheegay in sargaal ka tirsan al-shabaab ay dileen ciidamada howlgalka qorsheysan fuliyay waxaana magaciisa dowladdu ku sheegtay Aadan Yuusuf Sheekh Maxamuud Abu Salmaan. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa darajada Aadan Yuusuf ku sheegtay inuu al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada isla markaana ay la dishay 4 sargaal oo kale isla markaana ay wada socdeen sida hadalka u dhigtay. ciidamada Danab ayaa kordhiyay howlgaladooda deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waayihii dambe waxayna si gaar ah uga howlgalayeen qaybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose. saraakiisha ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danab ayaa ujeedka howlgalkooda ku sifeeyay mid ay uga hortagayaan weerarada iyo qaraxyada al-shabaab ee ka dhanka ah xarumaha ciidamada iyo kuwa maamulka. al-shabaab kama aysan hadlin sheegashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ah inay howlgal ku dishay saraakiil ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kaasoo ka dhacay degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. madaxweyne Waara ayaa kuna wuxuu la qaatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Qadar Xuseen Axmed ayaa warkan ku faahfaahinaya. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu kulan ula qaatay safiirka dowladda Mareykanka u fadhiyo dalka Soomaaliya Donald Yamamoto. kulanka ayaa waxa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 heshiisyada ay gaareen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa dowlad goboleedyada dalka. safiir Donald Yamamoto ayaa madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ku bogaadiyay sida uu raadinayo dib u heshiisiin wadajir ah oo loo dhan yahay isla markaana la gaaro hanaan doorasho waqtigeedu ku dhacdo. madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo qoraal soo saaray ayuu safiir Yamamoto iyo dowladda Mareykanka ugu mahadceliyay taageerada ballaaran ee la garab taagan yihiin Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan dhamaadka sanadkan 2020. si kastaba safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu wadaya kulamo gaar ah oo la qaadanaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka oo ku sugan magaalada Muqdisho iyadoo kulamada looga hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka dalka. halkaad warkaasi kala socotaan waradiyaha wadaag markaana akhbaaradka dibadda. Sweden waxay qaaday xayiraadii ka saarneed UK oo in muddo ah soo jiitamaysa hadalka oo ay maanta ku dhawaaqda ayaa si degdeg ah u dhaqangeliyay. maalmo ka hor ayaa ahayd markii UK ay ka saartay Sweden liiskeedii karantiilka. warbixin ay soo saartay ayay Sweden ku sheegtay inay ka laabatay inta badan digniintii safarka ee dalalka Yurub marka laga reebo dalalka Ireland, Finland iyo Malta. go'aanka Sweden ayaa ku soo aadaya xilli ay weli kordhayaan kiisaska xanuunka coronavirus-ka ee UK iyadoo maalintii saddexaad laga helay kiisas ka badan 3,000 oo qof. guud ahaan warka raadiyaha wadaag waa naga intaa kulan dambe sida ay nabadgelyo.